alaabadii dhacday ee laga soo ururiyay magaalada Boorama alaabtaas oo waxyeello badan u leh haddii dadweynaha laga iibiyo waxa jooga halkan oo hawshaas ka qayb qaatay dawladda hoose degmada Boorama gudoomiyihii nala jooga xildhibaanadii dawladda hoose madaxa hay'adda tayeynta bulshada rayidka oo uu ka joogo Master Gaafote Ibrahim dhammaanna dadkaasi waxay halkan goobtan u yimaadeen lagu gubayo qashinka si ay u dhammaystiraan u hubiyaan alaabtaasi inay gubatay waxaana waajib nagu ah dawlad hoose ahaan shicib ahaan iyo hay'adda tayeentaba in aan dadweynaha ka ilaalino alaabta dhacday ee u keenaysa dhibta waxaan u sheegaynaa dadweynaha iyo ganacsataduba in ay ka caawiyaan dawladda hoose iyo hay'adda tayeentaba sidii alaabta dhacday loo soo ururin lahaa ee loogu hubsan lahaa goob ammaana shaqada aan maanta waa shaqooyinka ugu muhiimsan ee noo igmanahay waxaan oran karaa tan ka weyn oo haynaa habeeraatay ma jirto waayo tani maanta waxa ku xiran caafimaadkii bulshada waxaan ognahay maanta dhakhaatiirta hadda dib ugu noqotaan ama dhakhtarada dib aad u noqotaan cudurka kansarku inuu magaalada aad ugu tira batay wax kalena ma sababin waa alaabta dhacday awgeed waxa la keenaa waxa Hargeysa alaab ka dhacda waxa kaloo la keenaa waxa wajaale alaab ka dhacda waxaanu nahay gobolka khasaare tira wixii Soomaaliland ka dhaca haddaynu inaga oo dhinac ka wada joogna aynu waxa iska qaban weynana dee bulshadu way dabar go'aysaa dhammaan imika wax dhimashada 80% waa kansar wax kalena ma aha waa sharaabka iyo buskudada iyo waxa macmacaanka la isticmaalayo hal baa soo raaca xabada soo raacda waxa weeyaan dawooyinka la isticmaalay waliba dumarku isticmaalaan waxaad ogtihiin iskinka bini'aadamka ilaahay sidoo u sameeyay waa sida ugu wanaagsan dawadii ay dumarku isticmaalayeen ay islahaayeen jirkiina wax kaga dhalaangadiya ayaa ku dhacaysa waxay noqonaysaa boogo iyo nabro finan imika inta inan aan soo bixi karin kulley waa laga wada warqabaa wax kalena ma sabaynayo wadooyinka dhacay bulshada mid baanu leenahay waxaanu leenahay bal waxaad iibsanaysaan dheedkiisa hoos u eega waliba idinkoo aad ugu fiirsanaya dheedkiina waa la bedelayaa maanta waa la farsameeynayaa bal aad ugu foojignaada halka aad ku aragtaanna iska soo gudbiya oo meesha inuu dhawood gudbin kartaan hadduu saldhig yahay iyo haday dawladda hoose ku dhowdahay iyo hadii aad cid ka garanayso hawlaha cidda ku shaqada leh inaad fariinta soo gudbisaan sidoo kale waxaan leenahay farmasiyada wali ma hayno dawo dhacday oo farmasi laga soo daadinayo bal iyagana waxaan leenahay wax badan baa ku maqanay haysiira baarbaaraan inta wixii ka dambeeyay kulli anagu waxaanu galeynaa shaqadeedii waanu qabsanaynaa magaalada si toosan u baaraynaa meel kasta oo ay waxaasi yaalaana wixii naga waajibay maanu ka qabanaynaa waxa kale oo jirta bakhaarro waaweyn oo alaabta dusha sare uun taala iibiya oo hoosba u dhaadhicin oo maalintii lagu furay alaabtii la dhigay ay hoosta taalo waxaanu leenahay kuwana waanu soo soconaa inta dibadda iska sii dhiga ka lagu qabtaana waa inoo maxkamadda iyo sharciga lagu kala bixi doonaa shaqaalaha iyagana aad bay u mahadsan yihiin bahda saxaafaddu aad bay u mahadsan yihiin waxaan leenahay shaqaalahana waan ku dhiirigelinaynaa hawshaas cidda u xil saaran waliba gaar ahaan qaybta waaxda cidda u xil saaran iyo hay'adda quality controlka labadaba waxaan ku siinaynaa abaalgud hadduu ilaahay yiraahdo waanu ku taageeraynaa mar walbana waxaanu shaqaalaha xooga u saaraynaa in ay hawshooda sii lebilaabaan waxaanu leenahay hawshiina lebilaaba waad ku mahadsantiin waxaad soo qabateen halka xaalinii maraya waan ognahay waana nugu garab taagnahay haddaanu mas'uuliyiintii nahay shacabkana waxaanu leenahay idinkuna nagu taageera hawshaasi waxaan ku raahdaa keenana yiraahdaa naga soo guba waxaan u gudbinayaa dadka waxaan ku raahdaa ka ganacsanaya waxyaabaha dhacay ee dadka dhibta u keenaya dadkeeni waxa ku dhacay xanuunada aan la garanayn xanuunadana waxa uu sababa waxyaabaha dhacay ee lambarka ama laga bedelayo ama waxaan ku raahdaa iyadoo dhacday la og yahay dadka laga iibinayo aan garanayn bulsho badan bay galaafatay marka waxaan ka codsanaynaa dadweynihiina soo doortay inay nala shaqeeyaan oo inay garab istaagaan oo mar walba waxaan ku raahdaa dhibta dhinac looga soo wada jeesto oo dadka
maxaan ku rahdaa gacmaha inta isqabsadaan la badbaadiyo ummadan bulshadeenan maxaan ku rahdaa la noolnahay mar walbana maxaan ku rahdaa laga hortago wixii dhib keenaya waxaan ka codsanaynaa in shaqada la soo doortay maamulkan maxaan ku rahdaa la noo dhiibay aan u madax banaanaano oo wixii dhib keenaya anaga mas'uuliyadeedina saaranta noo soo doorateen lanaga daayo faragelinta oo waxa weeyaan wixii sharciga waafaqsan sideeda loogu daayo sharciga oo talaabadeeda laga qaado haddii wax kasta oo talaabo ka qaadaysana ama se maxaan ku rahdaa aan wax ka qaban lahayn faragelin lagu sameeyo hadhow toole anaguna waanu yajabi doonaa waxba qaban mayno waxaana ka codsanayaa dadweynuhu inay nala shaqeeyaan dawladuna faragelinta naga dayso almidu ma ka hadlay intii hadal wala dhameeyay ma aha un sharaabkan iyo raashinka waxa kaliya gasbayrkii waxa ugu xubay waa dawooyinka ilmo yar baa loo iibinayaa hargab ku dhacay sharoobo 8 sharoobo markuu cabo uu ka sii darayaaba waa wax dhacay dawooyinka ugu xun dawooyinkana waxa leenahay qolada farmasiyadu inay keenaan ciddii mataqaanaa ay wax ku dhaceen ha keenaan ay soo diiwaan gashadaan haddii ay soo gelin waayaan de maxkamadu baa la geenayaa ciddii lagu arko raashinkuna waa la mid dawooyinkuna waa la mid ta ugu xumay waa raashin waa dawooyinka weliba waa dawooyinka waxaan leenahay farmasiyadan sidii dukaanada loo furtay waxaan leenahay taana wasaaradda caafimaadku inay ka hawlgasho oo nagala hawlgashaa fiican oo ka eegto qofkan dukaanka ka furtay de guri walba waxa laga dhigay meel walba farmasi baa laga furay sidii raashinka loo iibinayaa dawooyinkaasina ha keenaan farmasi kasta waa la baarayaa waa la dabagalayaa ciddii lagu qabtana wax la geenayaa maxkamadda والسلام عليكم تضع يدنا إسحلقانتي كباستي إني حاران قشي كي بسدد كده واحد عي حتى وحن لقي بنا يا نواد دوينه وحن انت راعسين إن يقول عقي هاي حق عدالة بالشاهان وحق عنت لقوها يا فلسفيكيشن بسنا وقلب كان انت اللي سوق هذا markiiba taariikhda isbedel loo sameeyay baa qalabkii lagu shaqeynayay tuuliskii la hayaa dadkii hawsha ku jiray gacanta lagu hayaa arintaana waa in si sharciga waafaqsan loo fuliyaan leenahay bulshahan hay'adda tayadowrka xalahay hawl weyn bay qabteen aad iyo aad buu mahadsan yihiin hawsha weyn ay qabteen wax weeye haddaba maadaama aynu nahay dad islaama aynu nahay dad ganacsataa aynu nahay dad doonaya inay mustaqbalkooda iyo maxay ahayday ubadkooda iyo aakhiradooda ay maxay ahayday ay u shaqeeyaan doonaya waxaanu leenahay ilaahay ka baqno aynu ilaahay ka cabsano aynu ummadeenna ilaalino aynu wadaniyada iyo hayna shaqeysa maxay ahayday dadnimada iyo damiirka fiican hayna shaqeeyo waxaa jira bakhaaro badan oo soo gudbiyay oo maanta alaabta aynu halkaa ku gubayna sharaab iyo walba ka kooban leh soo gudbiyay baa jira waxaa jira rag soo gudbin kari waayay damiirku siin waayay maanta ay maxkamadda ku socoto shalay waxaanu leenahay dawladda xagga dawladdana waxaanu leenahay cid kasta oo wax weeyaan ku lug leh nin inuu khiyaameeyo ummadii doonay oo dadkii khiyaameeyo doonay oo inuu ilaahay khiyaameeyo doonay yaan looga soo gurban baan leenahay xagga dawladda ha ka daysaanu leenahay maxay ahayd cid kasta oo ku shaqaleeyay inay faragelin ku sameeyso nin hawsha ay ku socoto oo baaritaan ku socdeen rag madaxa laga soo diro maxay ahayd xagga sare taa waxaan leenahay ilaahay laga cabsado ha laga ilaaliyo baan leenahay cid kasta oo mas'uuliyad ka saaran tahay waxaan leenahay ha laga joogsadaan leenahay rag bay maxkamadda ku socotaa waxa jirta durba juqayn badan baa jirto moodo inay juqayn badan jirto taana waxaan leenahay yeeli mayno haddaanu lahay councilkii golaha deegaanka taasina waa waxyeelo aan ka soo qabanay bulshadeena waxyaabo badan oo bulshadana yeelay aan ka soo qabanay waxaan aad halkan maanta ugu mahad celinayaa bakhaaradii iyagu is ixtiraamay ee iyagu macnaan maanta dalbaday in laga qaado alaabta lana soo gubo waxaan ugu baaqayaa bakhaarada kale ama ganacsatada kale haysa alaabta dhacday guryahooda yaalaan ee bakhaaradooda yaalaan in iyaguna soo wareejiyaan ay ku soo wareejiyaan dawladda hoose halkii taa hore aan marinay un baan iyadana marin doonaa marka alaabta dhacday inagana faa'iideena uma leh caruurteena uma laha caafimaadkeena uma laha waxa ka inagu haysaana waa dhibaatoon kan iibinayana qasaaroon bay ku tahay kan iibinaya doon inuu ka faa'iidana isaga qasaaroon bay tahay ilmihiis baa laga iibinayaa waalidkiis baa laga iibinayaa dadkiis baa laga iibinayaa marka waxaan aad ugu baaqayaa bulshada waliba aad ugu baaqay bulshada danta iyaguna iska eegaan dadku ay akhriyaan waxa ku qoran eegaan